الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والله ليال قوبتنا يمتاجنا هاي هذا يمتاجنا هاي وقوبتي وكنا عيد دجالكي أحد وسنة كيس الدحادي هجري قويا سنة كي كوبات سنة كي لما بنوتش إذا مركي لمنكي وحويان دجالكي بدر ودعي أي واحد دعي واتي بدر لوجش بيجي على هذا kadibna sanadkii ku xigay ayay go'aan waxay ku gaareen inay argos soo sameeyaan iyagoo markaa ciidan fara badan wata iyo waxa weeyaan hub iyo wax kasta u dhameystiran yihiin ayay markaa 400 iyo 16 kiiloomitir ayay soo lugeeyeen iyagoo doonay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa inay ka argoostaan wixii dagaalkii badar ka dhacay markaa kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ogaaday inay soo dhow yihiin iminka masaajidkii nabiga halkaas uu naga xigaa ayaa go'aan nabigu saxaabadiisu la tashaday dabta wuxuu yiri ashiiru calaya dabta markii daba go'aankii wuxuu ku qaatay in banaanka loo soo baxo meeshan banaan bay markaa warahay buurta aragtay waa buurtii Uhud buurta weyn 13 kiiloomitir ayay dharar u tahay markaa buurtaas buurta yarina ee dadku saarayeen waa buurtii Jabal Rumaa baa leedahay buurta dadku saarayeen nabigu konton saxaabi buu saaray oo waxay hayeen warmaha oo dhabar jibinta ay ilaalinayeen nabigu markaa meeshan istaraatiijiyad buu yimi markaa sallallahu alayhi wasallam oo dagaalka ugu tala galay kadib markuu yimi markii hore dagaalkii waxa lagu bilaabay mubaaris wax loo yaqaan bimaana waa soo bax madfacan iyo xabadan la soo eeganaya ma jirin kadibna marka 14 saxaabi nin walba ninkiisii oo gaalo qoorta ka jaray ayaa lagu dhaqaaqay Allahu akbar baba kadibna waxa dhacday waa la jibiyay gaaladii nabigu sallallahu alayhi wasallam markaa kontakii saxaabi buurta yar saaray amar wuxuu ku bixiyay hadii ay guuleysan nabigu yiri hadaan laga guuleystay ba soo digina hatta nabigu sallallahu alayhi wasallam hadii ijtihaadu noqonayso ha ka soo dhaaqina amar buu nabigu si amiir buu sameeyay in la oran jiray Abdullah ibn Jubayr ayuu ku waxa weeyaan amiir uga dhigay ha ka soo dhaqaaqina buu markii dagaaladii la jabiyay ayaa waxa dhacday waxay moodeen in khalaas hawsha dhamaatay kadibna way iskhilaafeen ilaahi baa quraanka ku sheegay hatta idha fashiltum وتنازعتم في الامر دبت ويس قبسدين تاميركو وحو النبي امر بو نسينا دغين يغو waxay dhaadeen khalas dagaalkii waa dhamaadeen nimankiina gaarsiya way soo dageen 10 saxaabi oo kaliya ku aray amiirku ku jira marka kadibna Khalid bin Walid marka saxaabi aan ahayn oo gaar aha dagaalkan aad ugu fiicna ayaa markasta wuxuu eeganay meesha dadka saxaabada saar buu eeganay markuu arkay badankooda ka dhaadhaceen uu soo dhaqaaqay 10kii buu dilay dhabar jabin baa daba dhacday ciidankii nabiga oo sii jeeda ayaa la weeraray markaa kadibna waxa dhacday nin walba meeshuu u jeeday ayuu kacay markaa dhibaata dhacday ilaahi baa quraanka ku sheegay intu suuduuna wala taluna ala ahadin war rasuul yad'uukum fi quraakum nabi maxamed ummadda waxa uga sheekaysaa suurta al-imraan wuxuu yiri waqti ay saxaabada qaarkood ay khalkhaleen markii dhabar jabin lagu sameeyay qofnaanu qof eegin nabiguna wuxuu leeyahay xaqayga kaalaya war rasuul yad'uukum fi quraakum nabigu sallallahu alayhi wasallam geesi waha rasuulka alayhi salaam waxa la tilmaamay nabigu talaabana hore muu qaadin talaabana dib uu dhigin halkiisa nabigu kuma dhaqaaqin saxaabadan kaalayba ku lahaa kadibna buurta inta laga warqtaa waxa dhacday Hamza ayaa markaa oo ku jira oo amu nabiyaha radiyallahu ta'ala anhu oo nabiga adeerkii ah oo nabigu aad u jeclaa waa tii lagu dilay waxa kamid ah saxaabadii markaa 7 saxaabi ayaa meeshan ku shiilay Mus'ab ibn Umayr baa kamid ahaa waxa kamid ah Abdullah ibn Jahsh baa kamid ahaa حمزة أيام السيد الشهداء والنبي قال ذيك صلى الله عليه وسلم ذات الدبعتها صار عند النبي قالت إيه لقيس لتشبيه وش قيس شرفته بدنانا والله وعن النبي عليه الصلاة والسلام كذبنا ساس أيود دجالكم مركان كله معه دجالكم وعند دجالك قالنا مركان أمر كي النبي قال الخلافي عليه الصلاة والسلام نبكي ولي ولكن صحابة قاركود أمر كي خلاف إلهي سبحانه مركان عنانت الصحابة وحول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة iyagu waxay lahayd dagaalku dhamaado bal qaniimadiina gaarsiya tani waxa la raawad dadka waxyaaba gaalada laga reebto ay ilaahay gaarsiya mutaawiliina way haayano waxay siraadeen madaxa u dhamaado dagaalkii la saxaabada nin maalkoodii bay horeen naftoodii bay horeen wax kasta nabiga way horeen nabiga xitaa waxa iyaga isku hareereynay rasuulullaahi alayhi wasallam si awgeed hadana khalad baa ka dhacay ujeedada marka ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad baa laga lahaa waa la kala saaray منافقين تنيكي وقامني عبد الله بن أبي بن سلول ورجري صدح بقول بدنا عو علي صدح بقولون ومنافق أيودنا عو علي
kun bay saxaabadu ahaayeen 700 baa meesha ku soo haray markaa kadibna 70 kaas meesha ku dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la kala calaf qaaday halkan iminka nagu ducaynay ayuu nabigu ku aasay alayhi salatu wasalaam xabaal wadareed buu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam dabata si ay u kala quraan badnaayeen buu ilka u xigsi ninkii quraanka dhamayska tiran xiftisanaa soddonka ilku xigsi kii ku soo xigay kii ku soo xigay kii ku soo xigay halka waxaan ka fahminaa quraanka in la xifdiyaa fadliga ay leedahay bal nabiga sallallahu alayhi wasallam ragaa dhintay waa shuhado waa saxaabo qaarkood iyagoo adduunka mariya loo bishaareeyay in jannada galayaan haddana nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale quraan badnaayeen ayuu qabriga u xigsiiyay nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaan walaalahay ka fahminaa waxaan u meesha maxaan sababta u maxay kow in horta ku cibra qaadano in halka saxaabada rasuulka ay ku jiraan sallallahu alayhi wasallam waliba ragga ay ahaayeen